السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة الإسلام كدب وأن دريم يا شوق وكليل أنتو دنا ولا فديي لكن واحد رجينا إن شاء الله تعالى أنت أنا سيد القادتان محاضرة عوان كيدو وصدا ورالكو شاقي عقيدة ووحى أمضها اسكو حرا مؤتمركو عوان كولي هاي محا أمضها لساء أي محاضرة قيب كت ummadaan isku caqiide ahayn oo aan isku meel u socon oo midba meel iyo jiha u socdo ummadaasi ma dhismi karto bal waxa laga yaabaa inay iyadu marka dambe isku hortimaado inta iskhilaafto caqiidada ay aaminsan tahay kala duwan darteed marka dhibaato ay dhacdo muxaadarada hadii alla ka dhigo insha Allah taala waxaan horta ka horeysiinayaa afeef ama cudurdaar raaligelin musbaqa afeeftaasi waxay tahay Soomaalidu baryahan dambe caado ay la soo bixin baa jirto oo xun caadadaasi waxay tahay wuxuu ka rabaa qofka Soomaaliga ah ama ninka sheekha ama wadaadka ama qofka daaciga wax sheegaya waxa uu ka rabaa isagu sida uu rabo inuu wax u sheego waxa laga yaabaa inaad muxaadaro jeediso ama darsi markaas uu ku imanaya oo ku leeyahay sheekh halka inaad sidaa tiraahdo may ahayn halka waa dadka yar didaya oo maaragtay dadku inay kala didaan lama baahna halka mala inaad yar dib dhigto ama aad yar sarbeebtay ku haboonayd qofka hadaad salaada weydiiso oo ma saxna hadana qofkii diinta sheegayay ee laga yaabo inuu isaga xoogay ku dhaamay inta doonta ba gaarsiisnaatay iyo wuxuu ka saxayaa sidii uu sheegi lahaa qofka sheekha ama ninka daaciga ah waa dhakhtarkuna hadii uu kala baqo qofkan jiran xanuunka haya ma daweyn karo hadaanu oran iyadoo TB hay Soomaalida xanuunka TB-ga leeyahay ugu nacabtaay iyadoo TB ay hayso oo qufacayo aduu yiraahdo warduray baa ku haya oo kala baqo ama kala xishoodo xanuunkan inuu u sheego ma daweyn karo walihi saasoo ku dhimanaya qofku wax kala garanaya Ilaahay diintiisa garanaya subhanahu wa ta'ala waxa isna looga baahan yahay intuu garanayo inuu sheego iyadoo dabcan aadaabteedii iyo xikmadeedii iyo asluubkeedii la marayo laakiin inaanu sheekhu noqonin marba dadku say rabaan inuu markaa wax u sheego waxa laga yaabaa in magaalo timaado oo la yiraahdo sheekhu magaalada tan mowduuc hebel iyo mowduuc hebel lagama hadlo maxaa yeelay hadaad ka hadasho dadka kala firdhaya marka tiraado ruuxu laga hadlayo in diintii ahayn waa diintii lafteedii weeye laakiin diintii baan dadka qaar u baahnayn saa darteed marka hadaanay u baahnayn inta ay rabaan u sheeg inta iyagu ay doonayaan ee ay ku faraxsan yihiin ee ay maaragtay waka inta kala hadal inta aanay rabin miyaa ma inaga dhaaf kule sheekh inta inaga daa horta afeefta waan hormarsanaya insha Allah qofkii hadaladan sheegi doona qaar kood ay cajabin waayaan iyo la yaabin waayo ninda si afeeftay waxaan u maleynayaa inuu cudurdaarkiisa si hormarsado insha Allah waxaan nasaaulahay walaalayaal mawduucu caqiidaduna waa muhiim caqiidadu waxaan oran karaa waa socodii diinta qofka Soomaaliga garanaya xayawaanku ama xoolaha aynu qalanno waa taleerada waa soo iyo saantu waa maqaarkan sare sooduna waxa ku dhex jira hilibka iyo lafaha inta caqiidadaadu la eg tahay ayaa amalkaaga u leekaanaya waa inta hilibkaaga iyo lafahaagu leeyihiin bahargaagu leekaanaya ma suurtagal tahay yaani waxa way sagaaro hilibkeeda iyo lafeedu iska yar yihiin inta la qalo harageeda wadaan laga sameeyo waxaan maraa rag xoolaha maaragtay dhiqi jiray inay yihiin suurtagal maaha inta marka caqiidadaadu la egtahay waa diintaadu la egtahay waa inta amalkaaguna la egyahay waxaynu maanta ka hadlaynaa marka wax way caqiidada insha Allah waxaan ugu rumaysanahay ummadda muslimiinta maanta dad badan baa xal u raadinayo isla war xalku xageebu ku jira dhibaatadan see looga bixi karaa mushkiladda u weyn ee ummadda muslimiinta haysata waa khalal ka galay xagga caqiidada وانا بيامين دون هدي الله كدغ ان شاء الله تعالى انت كدي walaalayaal waxa isweydiin kartaa aqeedo waa maxay aqeedadu waa waxa aad rumaysan tahay kalimadan waa kalimad carabiya aqada yaqidu waa guntay waxa la xiro waxa qofku maaragtay qalbigiisa ku guntado ee kalifa inuu u dagaalamo kalifa inuu wax u bixiyo kalifa qofkii la wadaaga inuu soo dhaweysto ka hor yimaada inuu iska fogeeyo waxa aynkaas aqeeda waxaad rumaysantahay waa waxaas adigu ama magaca doonta waa u bixi haddii baashi qabyaalada la oran jiray oo aan dib ka tilmaami doono insha Allah
ay tahay ta aad u cadhooto ee aad u dagaalanto ee aad wax u soo dhowaysato ee aad wax u nacdo ee iyaduba ku hagta ee aad u cadhooto aad u faraxdo oo wax u jeclaato wax u karaahiyeysato hadday qabyaaladdu halkaa ku jirto caqiidadeedu markaa waa qabyaaladu halkaa haddii ilaahay ku jira subxaana wa tacaala oo maaragtay wixii rabbi cadhogeliyaa ku cadhogeliyaan wixii ilaahay subxaanahu casa wajalla raalligeliyaa ku raalligeliyaan dadka ahlullaahiga ah aad ka agdhowdahay waxaad markaa rumaysan tahay alla weeye subxaana wa tacaala caqiidadu marka walaalayaal ma falsafadaynayo waa qofku waxa uu rumaysan yahay intaas haddaan isla fahanno waxaan wax ka odhan doonaa horta caqiidada iyo ahamiyaddeeda kow anigoo tusaalayaal xoogay ah intaan ku dheeraado ka soo qaadi doono jiilashii inaga horreeyey ee caqiidada saxiixaa fahmay waxaan ku xejin doonaa jahliga aynu kaga sugannahay caqiidada waxaan ku xejin doonaa si aan markaa u tusaaleeyo jahligaa si aan loo yaabin tusaalayaal haddii alla ka dhigo insha allah kadibna soomaalida iyo bal waxay rumaysan tahay baan ku soo khatimi doonaa biidni illah walaalayaal caqiidadu inay muhim tahay waxaa kuugu filan dee waa wixii ilaahay subxaanahu casa wajalla ambiyada la soo diray inay dadku ilaahay keliya rumeeyaan oo ilaahay isu dhiibaan waa wixii ambiyada lala soo diray wey waxaad og tihiin qur-aankeenna kariimka ahi yacni waxa weeye 114 suuradood culimmadu waxay yidhaahdaan dhowr iyo 80 suuradood baa maki ah dhowr iyo 80 suuradood baa maki ah macnaheedu waa maxay wixii maka ku soo degay caqiidun bay ka hadlayeen dhowr iyo 80 suuradood baa un caqiido ka hadlaya inta soo hadhay oo labaataneeyo uun agagaarkaas ah waxay ka hadlayaan waxay isugu jiraan axkaam iyo caqiida axkaamtiina waa ka qayb caqiidadiina waa ka qayb wey saa darteed qur-aankeenna kariimka waxaan ba odhan karnaa 80% ilaa 90%baba wuxuu ka hadlaa waaba un caqiido ahamiyaddeeda horta taasaad ku garanaysaa waxaa kaloo ahamiyaddeeda ku tusinaya nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam dacwada 23 sano nebigu waday sala allahu calayhi wasalam 23 sano 13 ka mid ah nebigu makuu joogay calayhi salaatu wasalaam maka muxuu ka qabanayay nebigu wuxuu ka hadlayay keliya caqiidada iyo tawxiidka dadka nebigu wuxuu u sheegayay calayhi salaatu wasalaam ayuha annaasu quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixuu wardad yahow laa ilaaha ila allahu dhaha waa liibaanaysaane intaasaa nebigu sharxayay 13 sano markii nebigu uu madiino tegay calayhi salaatu wasalaam 10kii sane cumrigiisa ka harsanaana caqiidana waa sharxayey acmaashan iyo cibaadaadkan iyo fiqhiyaadkan iyo mucaamalaadkan nebigu waa sharxayay calayhi salaatu wasalaam qur-aanka intiisii badnayd iyo nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisa intiisa badanba waxay ka hadlaysaa waa un caqiido bal ilaahay subxaanahu casa wajalla kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa nuuxi ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun rasuul ma dirno ilaa waxaanu la dirnaa oo keliya dadku inay ilaahay caabudaan tawxiidka in loo saxo caqiidada in laga hagaajiyo in maaragtay tawxiidkoodu khaalis saafiya noqdo intaasaa ilaahay subxaanahu casa wajalla ambiyadoo dhan uu ilaahay la soo diray subxaanahu wa tacaala caqiidadaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam 13 sano uu saxaabada barayay caqiidada dhowr iyo 80 suuradood oo qur-aanka ka mid ihi keliya ay ka hadlayaan iyadoo suwarka kalena xataa caqiidaduna ay ku jirto laakiin intan waa u khaalis waa u barax tiranta caqiidada caynkaasa jiil bay soo saartay dad bay soo saartay markay fahmeen oo cabbeen oo caqiidadaasi ay biya dhigtay ummad bay soo saartay ummadda ay soo saartay yaan rabaa inaan tusaalayaal yaryar ka bixiya haddii alla ka dhiga insha allah si aynu markaa u fahanno meelaha laynaga haysto inay ka mid tahay yacni waxa weye khalalka caqiide inagu jira sidii dadkaasi wax u rumeeyeen inaynaan u rumaynin walow aan dib ka tusaalayn doono waxyaalaha inaga khaldan waxaa ka mid a insha allah waxaad garanaysaan abubakrin radia allahu canhu maanta waxaa la ururinayay sadaqaad soomaalida waxay tidhaahdaa yacni beenaale markhaatigiisu fogeeyaan waxay kaloo yidhahdaan meyd maxaa la siday kaa u dambeeyey maanta u dambeysay hadda darsigii kan ka horreeyey sadaqaa la ururinayay sadaqadaa 5,000 ha la bixiyo or 2,000 ha la baxsado 1,000 ha la baxsado intaasaa wadaadada ina hortaagna ay ku xiiqeen kadibna xoogay baa laynaga helay bal saxaabadii nebiga hadda u fiirso abubakrin radia allahu canhu jamiica maalihii buu bixiyey maalkiisoo dhan maalkiisu intuu tiro la eg yahay yuu bixiyey weliba hal mar wax ka badan
miyaanu abubakar maalka jeclayn may uu jeceli waayo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaa'i waalbaniin bani aadamka waxaa loo qorxiyey adduunyadan baa loo qorxiyey carruur inay helaan maal inay helaan bani aadamku waa ka simanyey laakiin abubakar muxuu inagaga duwan yahay innaga radia allahu canhu adigu markaad maal haysato xoogay shilimaanay markay jeeb kugu jiraan haddaad aragto wax aad jeceshahay dhar baaba ku cajabiyey ama gaari baaba ku cajabiyey shilimaantii waad u huraysaa waad bixinaysaa maxaa yeelay shaygan aad ka jeceshahay shilinkan shaygan aad ka jeceshahay sidaa darteed baad isaga bixinaysa abubakrin radia allahu canhu caqiidada iyo iimaanka halkaa ugu jiray yacni inuu ilaahay rumaysan yahay oo diinta u nusreeyo baa kala weyneed shilimaantan iyo maalkan u haysto sidaa darteed buu markaa hurayey oo bixinayay saxaabada qaarkood sida cuhmaan ibni cafaan oo kale ciidan dhan oo duulaya ayay nafaqadiisa kafaalo qaadayay wax alliyaalay waxa ku baxa inay bixiyaan uu kafaalo qaaday radia allahu canhu arrinkaasi keliya wuxuu ka tarjamayaa walaalayaal in dadkaasi iimaankoodu jacaylka rabbi ay jecel yihiin iyo ku-xidhnaanta alle ay ku xidhan yihiin iyo doonidda ay jannada doonayaan iyo innagu inaynaan markaa isku meel joogin sidaa darteed ba abubakar radia allahu canhu maalin isagoo nebiga ag fadhiya calayhi salaatu wasalaam yaa nebigu arrinka uga markhaati kacay nebigu wuxuu yidhi maa nafacanii maalun qat maa nafacanii maalu abi bakrin maal weliga ima anficin oo wax ima tarin sida abubakar maalkiisu wax ii taray markaasaa abubakar ooyey radia allahu canhu wuxuuna yidhi wahal ana wamaali ilaa laka yaa rasuula allah oo maalka kan iyo aniguba adiga mooye miyaan maaragtay adun baabana leh rasuulka ilaahayo maalkaana adaa ku tasarufi naftaydana adaa ku tasarufay xadiiskaas waa xadiis saxiixa imaam axmed iyo kayrkii baa warinaya raximahullah kuma sii dheeraanayo infaaqii saxaabada iyo sida ay maalkooda u huri jireen oo ka tarjumaya caqiidaday aaminsanaayeen camalkii ay dhashayun ah abubakar radia allahu canhu markuu khilaafada qabtay wuxuu ahaa nin aad iyo aad u caadila cadligaas maxaa keenaya waa un ku dhaqanka diinta ilaahi subxaana wa tacala oo caqiidadiibaa midhahan dhalinaysa abubakar markii xukunka loo dhiibay khilaafada alkhilaafa alislaamiya markuu qabtay wuxuu yidhi ayuha annaasu inii qad wulliitu calaykum walastu bikhayrikum in axsantu faaciinuunii wain asa'tu faqawimuunii dad yahow ilaahay baa xukumkan ii dhiibay kiini igu wanaagsanaana ma ihi haddaan xumaado itoosiya haddaan wanaagsanaadana maaragtay ii gargaara oo maaragtay garab gala alaa ina daciifa fiikum qawiyun cindii qofka maaragtay xoogga badan ama ka tamarta yari dheh kan tamarta yari agtayda waa ka ugu xoogga badan xataa aakhuda alxaqa lahu ilaa xaqiisa aan u soo dhiciyo ninkiina ugu tamarta yar baa agtayda ka ugu xoogga badana alaa wa ina alqawiya fiikum daciifun cindii xataa aakhuda alxaqa minhu kiina maaragtay ugu xoogga badanna agtayda wuxuu ka yahay ka ugu tamarta yar ilaa xaqa aan ka soo qaado macnuhu waa maxay yacni waxa weeye cadli baa lagu wada noolaanaya innagana maanta markaad nolosheenna dib u eegto xoogay ka suldo yar hela ama awood yar hela wuxuu isku dayayaa ummadda inta kale inuu cagta mariyo cagta hoosteeda inuu geliyo isku dayaya soomaalida qabyaaladda aaminsani maxay isu laynayaan wax kale isuma laynayaan reerkana wuxuu rabaa inuu reerkan ka koreeyo inuu ku amarku taagleeyo caqiidadii abubakar soo saartay radia allahu canhu ee lahaa kiina tamarta yari agtayda waa ka ugu xoogga badan kiina xoogga badanna agtayda waa ka ugu tamarta yar leh si cadligu u istaago arrinka caynkaasihi innaga inooma degin inooma dhaadhicin maca daalikna qur-aankii baynu akhriyayna dee ilaahay baa ina amraya dad yahow cadaalad sameeya in allaha yaamuru bilcadl maalin kastaa khudbadaha lagu dhegaystaa markuu a'immada qaarkood ee khudbada u dhammaynayo ayuu aayaddaa ku soo khatima in allaha yaamuru bilcadli waalixsaani wa iitaa'i dilqurba salaada marka laga baxo masaajidka laga dareerana dulmigii baa loo dhaqaaqaya ayib cumar radia allahu canhu ayaa waxaa la yidhi maalin buu salaaddii jumcada ka soo yardaahay isagaana dee maadaamu imaamkii muslimiinta ee maaragtay khatiibkii ah markaasuu mimbarka koray markaasuu wuxuu yidhi xabasanii qamiisii haadaa dad yaho waxaan la soo habsaamay khamiiskan baa ii habsaamiyey oo talow khamiisku muxuu u habsaamiyey cumar wuxuu yidhi lam yakun lii qamiisun hayra qamiis aan kan lahayn maba haysan ninka caynkaasi waa ninkii ciraaq furtay adarbayjaan furtay ceeraan furtay masar oo dhan furtay
xijaas intii ka dhimanayd israaciyey qamiis kaliya wata ayib maxaa saa u galay waa un caqiida iyo maaragtay rabbi ku xidhnaantiisa qalbigiisa gashay markaasay acmaashiisa ka muuqanaysa waxaa la yidhaahdaa abaa طalxa radia allahu canhu ayaa maalin wuxuu arkay habeen buu wuxuu arkay cumaroo marba guri gelaya madiina marba guri buu gelaya oo ka soo baxaya abaa طalxa waa yaabay wuxuu yidhi muxuu cumar ku kalifaya tolo inuu marba guri intuu galo ka soo baxo bani aadamku naftiisu de waxbay ugu sheekaysaa shaydaanku waa khatar saa darteed ba culimmadu waxay yidhaahdaan qofka muslimkaa waxaa waajib ku ah inuu mawaaqica tuhamka ka dheeraado meelaha lagugu tuhmi karo ka fogow saan laguu tuhmin haddii laakiin adigoo reerkii had iyo goor ku lamaan oo markay shirayaanba ag fadhiya oo markay maaragtay allahu mustacaan dad islaama dulminayaanba u yar jiibinaya acmaasha xunay samaynayaan tabriirinaya oo le waxaa laga yaaba inay saa uga jeedeen ama dadkuba waa iska dulmi badan yihiin oo ummadda waa isku miday inaga daayey adoo uun inaha ku weegaarsanaya had iyo goor haddii lagu arko dee adaa isdhigay meeshii lagugu tuhmi lahaa in lagu yidhaahdo war wadaadkii talo maxaa ka sii noqday mabahashii baa gashay maalin heblaayana caynkaasuu yidhi maalin heblaayana tanaa looga soo joogay waa khatar saxaabigan abaa طalxa wuxuu markaa sameeyey maalihii cumar uu habeenkii gelayay oo ka soo baxayay uu maalinnimadii tegey markaasi wuxuu ugu tegey guryihii mid ka mid ah bicajuusin camiyaa'a muqcada qof dumaroo indhala oo maaragtay da'ah markaasuu wuxuu ku yidhi abaa طalxa wuxuu ku yidhi maa baalu hada arajul ninkan arrintiisu waa maxay ya'tiikii kuu imanaya ninkan habeenka kuu soo gelgelaya xaalkiisu waa maxay markaasee waxay tihi innahu yatacaahadunii mundu kada wa kada yacni ilaa muddo fogba ninkani waa ixanaanaynay mana garanayso waxa la yaalay wuxuu yahay markaasaa saxaabigaasi wuxuu yidhi hadal macruufa wuxuu yidhi cataraata cumar tatbac yacni waxa weeye abaa طalxow ma cumar maaragtay dhacdhiciisaad raadraadinaysaa de cumar nin dhacdhaca ma aha nin aan dhacdhaca lahayn haddaad xumaatadiisa raadiso dee xumaan ma soo helaysid wey maxaa ku kalifaya isagoo amiirkii muslimiinta ah oo shaqaalo kala diri kara inuu isagu maaragtay xataa qoftii dumarka ahayd ee maaragtay tamarta daraysay inuu isagu maaragtay sha'nigeeda ku hamiyo caqiidada aan ka sheekayn doonna innaga wax inaga khaldameen ee qur'aanku intiisa badan uu ka warramayo ambiyada iyo rusushii oo dhan loo soo diray taa weeye ta'jiyaasha iyo jiilasha abuurto walaalayaal waxaa la yidhahdaa cumar ibnu khataab radia allahu canhu ayaa maalin wuxuu arkay baa la yidhi ibilan sinaaman geel aad u naxnaaxay markaasuu wuxuu yidhi ibilu man haada war geelan yaa iska leh markaasaa la yidhi geelan waxaa iska leh cabdullaahi ibnu cumar waa inankiisii markaasuu intuu qoslay cumar buu wuxuu yidhi geelan ma waxaa iska leh cabdullaahi ibnu cumarkii ibnu amiiri almu'miniin ah amiirka mu'miniinta inankiisi miyaa geelan naxnaaxay leh markaasaa la yidhi haa wuu u yeedhay waa qisa runtii in wax badan laga faa'idaysto mudan waa u yeedhay markaasuu wuxuu yidhi muxuu yahay geela kani inankii u hadlay wuxuu yidhi aabe dee geelan anaa iska leh qof muslimiinta ka mid un baanahay abtagii maa yabtagi almuslimuun muslimiintu say u ganacsadaan baan u ganacsadaa cumar wuxuu yidhi miyaanay ahayn marka geelaaga la arko in la yidhaahdo war geela ilaaliya waa geelii amiirkii mu'miniinta wiilkiisii war geelan waraabiya amiirulmu'miniinka inankiisii baa iska leh miyaan saa lagu odhan macnaa wuxuu ka wadaa khaliifkii ama maaragtay khaliifkii muslimiinta magaciisii baad maaragtay si aan toos ahayn aad ugu intifaacsanaysaa geelan waad iibinaysaa wiil wixii faa'iida aad ka heshana baytulmaalka muslimiintaad ku daraysaa wixii maal asal ahaan aad u lahaydna waad qaadanaysaa innagana maanta waa la isdhexal siiyaa maaragtay madaxtooyada xataa qabqablanimadaynu kala dhexalnaa inagu iskaba dhaaf madaxnimee qabqablanimaduba xitaa hadda la kala dhexlaa oo kii meel isbaara u taallay ama meel muslimiinta ku dhibeeya hadduu dhinto ilaahay oobsado ama la dilo inankiisii baa la wareegaya dulmigii iyo xumaatadii walciyaadu billaah sanadkii abaarta darana ay dhacday camur ramaad la odhan jiray yaa cumar ibnu khataab waxaa la yidhi calooshiisa yacni maaragtay waysan qadhay qofku markuu dee gaajoodo waata caloosh wakhtiyada qaarkood qururuc tiraahda markaasuu wuxuu yidhi qarqirii in shi'tii aw laa
wallaahi laa shabacti waalmuslimuuna jiyaac caloolay buu yidhi ama qayli ama ha qaylini wallaadan u dhargaynin iyadoo muslimiintu ay gaajaysan yihiin cadliga intaa la ego lalayaal saan hore u soo tilmaamay iskama iman waxyaala innagu aynu ka tegayno muslimiinta wakhtiga nool waxyaala ay ka tegayaan oo aanay u dhagta aanay jalaq u siinaynin waxyaalahaasaa kalifa ama sababay in jiil caynkaasi soo baxo kuma eka saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam nuuraddiin azanki inaad maqasheen baan filayaa dadka inta badani waxay yaqaanaan yacni maaragtay allahuma mustacaan salaaxuddiin alayuubi salaaxuddiin rag baa ka horreeyey khayrkan uu sameeyey gogoldhig maaragtay fiican u sii sameeyey waxaa raggaa ka mid ahaa yacni maaragtay allahuma mustacaan nuuraddiin azanki nuuraddiin azanki ayaa waxaa la yidhi maalin waxaa lagu dul akhriyey xadiis musalsala xadiiska musalsalkaa waxaa la yidhaahdaa musalsalku waa yacni maaragtay cilmulxadiisku ka mid yahay mustalaxa sanadka haddii ragga xadiiskaa ku jira mid kastaba maaragtay xadiiskan markuu warinayo uu kii hore ficil ku waafaqo ama qowl ilaa nebiga laga gaaro calayhi salaatu wasalaam xadiiska caynkaasaa musalsal la yidhaha maalan sida xadiiska soo arooray nebigu intuu xadiis sheegay calayhi salaatu wasalaam buu garhkiisa qabtay markaasaa saxaabigii xadiiska warinayey markuu taabiciinta u sheegayey isna sidii oo kale nebigu garhka u qabto isna garhka qabtay taabicigii baa sidaa yeelay xadiiska caynkaasu kale waxa la musalsal macnaa wuu silsiladaysan yahayoo ficil baa ka dhexeeya xadiis musalsala laakiin waxaa ka dhexeeya uu yahay musalsalun bitabasum nebiga xadiis laga wariyey calayhi salaatu wasalaam isagoo qoslaya markaasaa saxaabigu markuu taabiciinta u sheegayey yuu xadiiskii u sheegay markaasuu isna qosol raaciyey taabicigiiba isna sidaa sameeyey taabicigii ninkan zaynudiin nuuraddiin zanki ah yaa xadiis sanadkiisa uu ku jiro tabasumka iyo qosolkaas isna uu wax ka wariyey baa lagu dul akhriyey xadiiskii markaasuu qosli waayey ilaa inuu qoslay ahayde ma aanu qoslin markaasaa la yidhi maxaad u qosli weyday markaasuu wuxuu yidhi innii la astaxyii min allahi tacaala an yaraanii mubtasiman waalmuslimuuna muxaasaruuna bilfaranj ilaahay baan ka xishoonayaa inuu arko anuu qoslaya iyadoo muslimiinta ay gaaladii hareeraysay waa wakhtigii xuruubu saliibiya wey iyadoo muslimiinta ay gaala hareeraysay allaan uga xishoonayaa inaan qoslo dadka caynkaasi marka walaalayaal dee waa dadka diintan fidiyey weeye aafaaqda adduunka gaadhsiiyey inagu adduunya jacayl baa meeshanana keenay inteenna badan adduunun baa la raadinaya laakiin dadkii innaga inaga wanaagsanaa sida aynu inagu adduunka ku nahay bay aakhirada ku ahaayeen aba ayuub alansaari qustantiiniyuu ku shahiid oo ku dhintay waa magaaladan hadda istanbul loo yaqaano dadka caynkaasi ee caqiidadu ay tarbiyadaysay iyagoo waaweyn oo da'ah iyo iyagoo da'yaroo dhallinyaro ah intaba islaamku wax weyn bay u soo qabteen soo lama socotaan muusa ibnu nusayr ninka ondolos dhulkaa la yidhahdo hadda sbain iyo bortugal loo yaqaano furay oo islaamnimada gaarsiiyey da'diisu waxay ahayd baa la yidhi 28 jir markuu ka tegayey maqrib alcarabi oo baddaa fuulayo oo ondolos oo dhan islaamnimada gaarsiinayo oday maaragtay marka laga eego xagga da'da dee nin weyn buu ahaa laakiin culimmadu hore waxay u yidhaahdeen yacni maaragtay himmadu waxaa himmada la yidhaahdaa ma gabowdo qofku isagaa gabooba laakiin himmada qofka bani aadamka hadduu waxaan ku qanacsan yahay ku faraxsan yahay ma gaboobo innaga waxaa laga yaabaa nin shaabahoo dhallinyaraha haddii la yidhaahdo war qaafilo dacwaa baxaysay halkan baa laga soo yar jiiraynaya inuu yidhaahdo war oday baan yar noqdo dhabarka iyo waxba xanuunayo gaadhigaas muddadan uma adkaysan kara iga daayey adduunya haddii loo baxayo diyaarad buu halkan ka fuulayaa dabeedna ilama ay afriku tegaya taas waxba yeeli mayso laakiin gaadhigaa yar ee dacwada iyo diinta ilaahay ugu dhaqaaqayo dhibaato ku haya maxamed alfaatix waad ogtihiin qustantiiniya muslimiinta inay ku adkaatay ninka qustantiiniya furtay istanbul maxamed alfaatix la yidhaha 23 jir buu ahaa baa la yidhi 28 jirna ondolos buu furayey 23 jirna qustantiiniyu furtay soo ma ogodin imaam albukhaari kitaabkan weyn ee kitaabu taariikh la yidhaahdo inuu 18 jir ahaa markuu qorayey axmed guray oo taariikhdiisa aan filaya inaad maqasheen 23 jir 21 jir 19 jir intaba waa la yidhahdaa markuu jihaadkan qaadahay
maanta qarnul ifriiqi oo dhan muslimiinta ku noolay ay isku haystaan oromadu leedahay annagu ahaa cafartu leedahay annagu ahaa soomaalidu leedahay annagu ahaa xataa yamantu leedahay annagu ahaa ilaan de wixii wanaagsan baa la isku qabsadaa dahab bannaanka ayaa la waa la isku qabsanaya laakiin ciid bannaankaa taalleexdina waxba ku falay meesha isku qabsan mayso yacni da'diisu 19 ilaa 23 inta u dhaxaysa unbuu ah dadkaas walaalayaal yacni waxa weeye maaragtay allah mustacaan dad caqiido ay soo saartay wey dhammaantood caqiidadaasoo innaga aad mooddo inay xoogay wax inaga yar halaysan yihiin dadku waxay ahaayeen dad caqiidadooda iyo iimaankooda ku sabra bal iska badaayee damca in naftooda markay bixiyaan ay dadka kale tusaale u noqoto waxaan filayaa inaad wada maqasheen ninkii la oran jiray waafiq waqtigiisii waqtigii imaam axmed bin xambal inay dhacday fitno ahlu sunnaha culimada ahlu sunnaha inta la soo ururiyo baa waxa lagu oranayay waxaad tirahdaan quraanku waa makhluuq haddii kale waa la dilaya rag waa qaybsameen alimaam albuwayti ninka maaragtay sheekha imaamka balada qisadiisa fiiriya waxa uu leeyahay markii ninka la soo xidhay buu yiri wala in dakhaltu alayhi la asduqannahu haddii ninka aan u galo waafiq la yiraahday khaliifka sheeganaya walla waan u run sheegaya waxaan ku oran doonaa yaani waxana sheegaysa waa khalad muxuu saa u yeelaya illa waa la dili doonaa isna waa og yahay waxa uu leeyahay hatta yaati qawmun ya'lamuuna annahu qad maata fi hada sha'ni qawmun fi hadidihim illa dadka inaga dambeeya ay ku ogaadaan caqiidadan iyo diinta tani rag inay u soo dhinteen oo maaragtay iyagoo ku xirxiran yaani maar silsilada ku xirxiran ay u soo dhinteen illa laga ogaado walaalayaal waxaan u malaynayaa tusaalayaashaasi waa badan yihiin intaas ay naga filan insha Allah caqiidada saxiixa ee waa caqiidada kitaabka iyo sunnada ee nabi maxamed nala soo diray calayhi salaatu wasalaam ee culimada kutubtooda ay ku qoreen yaani maaragtay bal iska badaayo kutubtooda ay ku bilaabaan waa doctor imaam muslim wuxuu ku bilaabay kitaabkiisa saxiixa kitaabul iimaan imaam al-bukhari badul wahyiga markuu dhameeyay kitaabul iimaan buu ku xijiyay ibn hibban saxiixiisa kitaabul i'tisaam bi sunnah oo caqiidadii abu ku xijiyay yaani ku bilaabay ahamiyada ay leedahay xataa waxaad ka arkaysaa sida ay culimada kutubtooda waaweyn ee mu'allafaadka ee qiimaha leh ee muslimiintu ay kala dhaxleen inay maaragtay caqiidada ku bilaabaan caqiidadaas de waxay u baahan tahay muhaadaraat iyo duruus qofku inuu barto sida aynu jahliga uga sugannahay baan dhowr tusaale ka bixin doonaa insha Allah mukhalafaadkeedana tusaalayaal baan ka dhiibay haddii alla ka dhigo insha Allah dhowrka tusaale kalimatu laa ilaaha illa allah waxaad ogtihiin inay tahay kelimada islaamka lagu soo galo qofka haddii ay ka burtana yaani maartay qofku islaamnimadii ka baxayo kelimadaasi haddaad maanta dadka muslimiinta ah weydiiso imtixaanaad kaga qaado shuruudeeda ma garanaysaan oo haddii la waayo aanay shahaadadii ansaxaynin in yar baa garanaysa haddaad weydiiso war kalimatu laa ilaaha illa allah arkaanteeda ma taqaanaa in yar baa garanaysa haddaad weydiiso muqtadayaadkeeda iyo lawaasimteeda iyo waxyaalaha ka dhalanaya ma garanaysaa in yar baa garanaysa baab kale iskaba dhaaf waa kalimatu tawxiid arkaanteedu waa ka muhiimsan tahay arkaanta salaada waayo waaba wixii islaamka lagu soo galay shuruudeedu waa ka muhiimsan tahay shuruuda salaada waa wixii islaamka lagu soo galay nawaaqideeda ma taqaana waxyaalaha ka burin kara haddaad la timaado shahaadadiiba ka buri karto ma garanayo in badan oo dadka kamid bal waxa laga yaabaa hadii la yiraahdo waxaas islaamnimadu buriyaa waxaasna islaamnimadu buriyaa hadii la sheego culimadu ay ka hadlaan inuu u qaato wax cusub oo yiraahdo waxaan weligeey maanan maqal shahaado buraysa sidii weysada oo kale weligeey maanan maqal ma kororsanayo ma ziyaadsanayo laakiin waxa weey inna wajadna aabaana walaalayaal saddex baab oo caqiidada kamid ah muhiim ah yaan mid kasta in yar ka oranaya bal si ay nafteena ugu miisaanay insha Allah baabka koowaad waa walaa wal bara muxaadara laga dhigi doona hadii alla ka dhigo insha Allah ta'ala oo sheekh maxamed baa faahfaahin doona saan filaya biidnillah laakiin maadaama muxaadaradu caqiidada tahay baan in yar ka tilmaamaya ilaahay wuxuu kitaabkiisa ku leeyahay la tajidu qawman yu'minuuna billahi wal yawmil aakhir yuwaaduna man hadda Allah wa rasuulahu nabiga la hadlaya alayhi salatu wasalaam qoom mehelaysid baa la yiri alla ay aakhira rumaysan oo gaaladiina jecel labadaas ma kulmaan baa leeyahay ilaahay baa warka Allah subhanahu wa ta'ala gaalkii buu kalkisha ku wataa waa u doodayaa
يعني ما حركتي الله المستعان خير إنه صوّد وشيء يا كما ما ركت إسلام كي قال ككور يمي بهذا يقول هي فيا عيبه سرادين يا إلهنا محو كتاب كله سبحانه وتعالى مهل يسد باليري قوم الله يا آخرنا الرميسا قال كينا كلكيش قوته سورة قلمة لا يجتمعان محايا لي عقيدة وين إلهي جعلاته ضدك الله جعلنا جعلاته وين كفرك النعضية قال لماذا كفارتنا النعضه لكن لبا شيء oo maynis iyo balaas isku ah masada Soomaaliya taadab iyo miisaan culimaduna ay yiraahdaan mutanaaqidaan laba shay isburinaya ma kulmi karaan saadarteed bay culimadeena waxay soo guuriyaan muslimiinta ahi inayba ijmaac tahay haba yaraatay khilaaf baanu ka taagnay culimada muslimiinta dhexdooda maalinka gaal iyo islaam sirdiyaan inuu ku islaami yiraahdo gaalada la soo safanaya inay gaalnimo tahay cidaba iskuma diidin bal warka doo fiirsada gaal iyo islaam baa iska hor yimi ilaahu muslimku gardarnaado dadka qaar kood baa ku oranaya gaalada waa la shaqeynaya taasi waa mas'ala fiqiya waa fiqh siyaasi sharci laakiin maalinka gaal iyo islaam ishirdiyaan qofka muslimka wuxuu ku khasban yahay inuu safka walaalkiisa muslimka galo aan wax islaaxiye iyo wax hagaajiye iyo khutada iyo يعني ما رت أخطاءنا عن صحنا أي مسألة كلوي لكن نصرة قفك مسلم كوقال لغه ليا ومسألة خطرة علماء الرجاء وحي سوغوريين إجماعات إن اللي اسكو ديدين وحكم إذا الرجاء وركا سوغوريين إمام ابن حزم وحكم إذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ وحكم إذا الشيخ عبد الله بن حميد وحكم إذا الشيخ معاصر كواجد ويتود انتلاه ونحرس الشيخ ابن باز هذا ابن باز وركي صادان أخريه وقد أجمع علماء الإسلام على أنه من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم وحشيخ ليه هاي وحي مسلمين علماء المسلمين تكوكل مان قفا الدين قراني لقاها دمائي ننفع كدر فردياه وأن قال الله يقال الرسول تون قراني ورككم مجرى يساون وحال لقاها الله علماء المسلمين توي علماء المسلمين توحي كوكل مان qofkii gaala iyo muslimiin diriraysa gaalada u hiiliya intuu doonaba hiilkaasi ha gaadhay bi ay nooc min al musaacada intuu doona ha gaadho qalbiga ha ahaado afka ha ahaado adinka ha ahaado intuu doona ha gaarsiisnaadee fa huwa kaafirun mithlahu waa gaal iyagoo kala ah warkaasi waraad anagu iska leeyahay ma aha walaalayaal waa war culimada muslimiintu ay leeyihiin iyagoo kitaabka iyo sunnada ka dheeganay iyagoo kitaabka iyo sunnada ka dheeganaya war ay leeyihiin weeye bal hadda caqiidadaas waxaad u barbar dhigtaan inaga nolosheena walaageena iyo baraageenu inagu ma yahay lillahi wa li rasuulihi wa lil mu'miniin misamaya waxaan ugu maleynayaa in yaro ilaahay u naxariistay mooyee qofka Soomaaliga ah walaagiisa iyo baraagiisu waa reerka xataa reerku hadduu dab ku daadanayo oo uu arkayo reerka laftiisa xataa tan inaanay dan iyo maslaxad u ahayn oran maayo war ka soo jooga maadaama caqiidadiisii tahay dee qofku caqiidadiisa ma qarin karo waana u dagaalamaa in yaro ilaahay u naxariistay mooyee subxaanahu wa tacaala caqiidadaas walaa iyo baraagu markay luntay walaalayaal dad inaga horreeyey dhibaatay ka dhaxleen muslimiin inaga horreysay dhibaato weyn bay ka dhaxleen markay gaalkii islaamkii kala saari kari waayeen waxa kamid ah nimanka Ondolos hadda aan sheegayni asbaabta ugu waaweyn ee muslimiinta Ondolos ay la burbureen waxa kamid ah markii islaamkii gaalkii kala soocmi waayay oo qofka muslimka ahi uu yiraahdo talawiyadani kugu jirtaa inaad maanta raacdo yaa kursi ku ilaalin kara yaa haddaad raacdo aad maal iyo shaqo kaga helaysaa yaa sumcad ku soo kordhin kara taasi markay dhacday waa marka muslimiintii la waayay waxa ay gaareen dadka muslimiinta ahaa in laba nin oo walaalo ah ay gaala isu soo kaxaystaan ilaan kursi jacaylku meel kastu galayaa laba nin oo walaalo ah inuu kana gaala soo kaxaystay kana gaala kala soo kaxaysto marka la islaahay illa ma marka culimada qaar kood ay ka gabiyeen nin shaacir ah wuxuu leeyahay isagoo muslimiintii Ondolos waaga sifaynaya wuxuu yiri fahum ahma li hawzatina wa awla بنا وهم الموالي والعشير لقد ذهب اليقين فلا يقين
وغر القوم بالله الغرور رضوا بالرق يا لله ماذا رآه وأشار به المشير مضى الإسلام فابكي دما عليه يعني ما ركتي وحنك شاعرك إلي هدام فصيره قالوا قالوا فهم أحمى لحوزتنا أو أولى قالوا إيجا كوا وحنو وردية وهم الموالي والعشير كوا أنو مارتي تمرت كدونه إيا كوا قرابة أنو أيبواهم قالوا لقد ذهب اليقين فلا يقين إيمانك واتقي إيمان مجربوير وغر القوم بالله الغرور ضدكينا شيطان باك حيستي رضوا بالرقي أدون ما يكون على النقدين إلا نين قال راعي وأون أدون وحلقيها مركز دركيس قروح ليس إيوه meelaha markuu ka hadlayo aad u qaadato inuu nin khatar yahay laakiin majaalista hoose adoon way waxaan aad u xasuustaa qaarkiin eelad maqasheen baa laga yaabaa shir mu sheekh lagu qaban jiray waa hore meeshan Masar ku taale ee gaalada ku shirshiraan ninkan hadda urduniga ah Abdullahi la yiraahdo markii aabihiiba dhintay oo cusbaa ayaa ma kadib meesha shir ka dhacay shirkii la isugu tagay ayaa waxa laga hadlayay arrimaha Falastiin dabcan واجانا نبنك يهودا نتنياهو باو أهانشري رئيس الوزراء إن كانوا سياسة إسكاع عصب ولي أدون لماذا عن ده صفة عن لوجو توابرين يدا براكتك مو أرك لكن يدا تيوريا لوسو أخري يا مجلس كصوفر يستي وحدم عينه حوجي نبنك الفلسطينيين تاخذوا هذا وحلا هذا نتنياهو شرايده على لوجو قري وحيري محادث مديوير وحات هاي ويري يعني ما رأيت أريشير باتهاي ضد كذا شوكتانا وحوجي أريشيره وحلا يرمركها واحد دمعي وماشان وقتش يديه إنه كعبو دمعي بالي مركز سانين كان مصر هاي حسن مبارك بعقرب كقبطير فريسو نبت أسألك وده شراي أظن بقصة بيراي أهلا وسهلا بالجحيم أظن ماذا يعني ما رأيت الله مستعان كسر دوه dad kan aan arkayna marka wala leeyahay wala wal baraagi ka tagay diinta ilaahay ka dhaqaajiyay inteedii badnayd waa adoomo ninka shaacirka marka wuxuu leeyahay radu birriqi adoonnimadaas ku raali noqdeen gabigu waa iska dheeriyay wuxuu leeyahay madal islaamu fabki daman alayhi islaamki waa tagay yaani u ooy oo waliba ilmo biyaha ooyine ilmo maaragtay dhiiga ooy ilmo dhiig ah ooy waa gabay iska dheer weeye oo ka turjumaya waaqicii marka jiray innagana kamaanteen haysta marka walaalayaal bal walaa wal baraaga ay muslimiinta maanta isbarbar dhiga Sheekh Maxamed baan aad u faahfaahin doona saan filayo insha Allah waa mowduuc inaga khaldan aad inooga khaldan oo maanta muslimkii laga dhaadhicin kari leeyahay war wax kastaaba idinka idinka dhaxeeyo dib kastaaba idin dhex taalo yaani waxa weeye mushkiladeenu intay doonto hal la ekaato laakiin Soomaalidu waxay tiraahday foolo timaado guda qarshay dhimay haddii gaal yimaado war wixii kale ilaawa قال هدوي ما دوحي كلا إسك إلاو لو كريم هاي محيالي عقيدة الراسخ أهيد دتك أنو أركي إن كوك اللي فتح حتى قصل كإن الديدان تاسين نقدر عادين تاسين العبين تصالح الله بعض الليال أن تصالحين أيوه خلل كعقيدة إن جت شراي وحي هاي موضوع عن حاكمية الليرة عالم الإسلامي مقارنة إنسان مال إله الدين تيسا كتابك يسنده أي ميزان يحكم يهين عالم الإسلامي ما أنت وحى لقوا حكمه والقوانين وضعية دساتير أنت بدن قال هذا لقى كياني موضوع أسوأ موضوع عقيدة وخطرة علماء المسلمين تناكها لين إلى هذا الكتاب كيسا كقابل سبحانه وتعالى كتاب القرآن كعلماء وحيرا ما دد حكمة فعل كاي اشتقاقات كيسو لابد بقول إيه طوان قرب القرآن كسو لابلابتين كلمة حكمة يد تصريفات كده حكم ويحكم وحكما يعني ما عرفت كلمة اشتقاقات كده نوع يدون طبعا نقطة لابد بقول يطبان قور أي قرآن كسو لابلابتين حقيقة قجرتا حكم كي عين كاها حقوك قجر أنه لشين إلهنا سبحانه عز وجل كتاب كي سوك قور رمي ألا له الحكم وهو أسرع الحاصبين إلهي سبحانه عز وجل حكم كإساء إساسية كلجي قفك اللغة العربية قرنيا وحو أركيا آيات اللي قفا إيدي السنة التخصيص ووحي هاي مبتداها إن لصهر مريو تجاري مجرور كالله دنبيسيو إن لصهر مريا وحي فإيدين إساء تخصيص ألا له الحكم معنى هو إساء أو كلي أبا حكم كإسكاله إذكال لما وداي كرتو
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وفي الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ألا وكلجي بالير ما هذين كلجي بإسكاله كلجي بعد الله من إنسان كلجي بحكم كإسكاله. مسلمين تمان تقار كم ذا وحكورنا يا كلجي بالله مهديا واصح كلجي بعبادة واصح كلجي بالله الله من يا واصح لكن كلجي بحكم كله على مسؤول بصارا مدوا بنك علماني وحولي إسلامك وقت كان وما بهبونا لو ما بدق من كروا مدنا ومد عبسي وكشرتو إسلام لماذا راد وكل صوني أيامي محكمة قرن ما يسوون الله يال أيامي محاكمته إن صومرين يعني ضدكو واحد مودا دينتو إن مال خطرة كتوريس مركب مغلين كتاب على سكو حكومة إياه ولا يربر أروجي وحلل طول كتاب على سكو حكومة إياه محون نقندونا ترى مركز واحد الله في رصدي واحد اللي عليه واحد dadkaas camalka ku dhex jiray wixii ay wadeen baa loo aad loogu fiirsaday markaas haday kelimada ka soo baxdo la taxliilin amal yar haduu ka soo baxo maxay uga jeedaan la oran hadii ma aragtay allah musta'aan qof meel lagu yar jeedlo ama xad la yiraahdo waa la oogaya oo wixii kitaabka Allah iyo sunnada nabiga ka buuxay dadku wada baqayaan wax kale ma bani aadamku waxa aan ma aragtay aanu caadeysanin hadii goor uu ka baqaa laakiin wuxuu caadeysto waa iskala nooli islaam la isku xukumayaa inaan arkin markaas waxaynu isleenahay hadii xadka la oogo armay dhibaato ka dhacda hadii qof dambi gale la jeedlo arma cirku soo dimaa mushkilada dhacda walaalayaal ahkaamtan wadciga ama dasaatiirtan wadciga oo la isku xukumo culimada muslimiintu waxay ka yiraahdeen wixii ay walaa wal baraaga ka yiraahdeen balad hadalkan dhageyso ibn al-kathir wuxuu leeyahay rahimahullah faman taraka الشرع المحكم المنزل قفك كتغ دينتي لسودجيه محكم كاهيد ee nabiga lagu soo dajiyay وتحاكم الى غيره من الشرائع او مارته waxyaalo kala doonta man fa'ala dhalika kafara bi ijma' المسلمين qofka cayn ka sameeya muslimiintu dhan baa ku kulansan inuu gaaloobay waxa laga yaabaa istiraadaan war wadaadku muxuu caawo dhan gaalaysiinay waa maxay muslimiintu dhan baa ku kulansan in la gaaloobo inuu qofkaas gaaloobay wax kala ma walaalayaal usuushi waaweyneed aqeedada yaynu ku dhaqmaynin jahli kaga suganahay marka laga hadlo oo la cadeeyo arinku sida uu yahay ayaa marka laga yaabaa dadku u qaataan wax cusub la keenay maanta Soomaalidu warkeena ugu badani waa siyaasadda ee ugu xiisaha badan soocayn kama waxaan filayaa warka inaan doodi ka jirin warkeena ugu xiisaha badan ee laga sheekaysto waa siyaasadda laakiin dadku markay ka doodayaan dad baa fadhi ku diru bixiyo magacaas way asiibaan markay ka doodayaan waa yar tahay qof leh war waxa kan horta siyaasiyiinta lagu sheegaya maxay diinta Ilaahay ka yaqaanaan dastuurkan ay wataan Ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga Muhammad alayhi salaatu wasalaam iskaba ilaa wixii kala dhanba qabaliyad iyo 4.5 ki iska ilaa iyo reebal muxuu ka qaatay yaa madaxweyne noqday yaa Allah noqday iska ilaa يعني ما ركت الله المستعان خلافات كأي دقالات إحيالها جرال كان إسكادي ضد كاني سياسة الشيغانة يا كتاب كي الله يسنن النبي وضع عليه الصلاة والسلام وقيران حتى كل واقعية أو إسكوه الرئيسين يوله أنه كان وضع كتاب كي الله وضع سنن النبي وضع عليه الصلاة والسلام تاسي ضد يربي وجرتا يعني ما ركتي فكر كود وكجرتا أرنا سوحة تصنع يا والله ليال موضوع عسوين labada 110 goor maadadiisu quraanka ay ku soo laalaabatay inaan baabka bay inoogu jirin wadaadka ka hadlana waxa laga yaabaa in la yiraahdo wadaadku muxuu siyaasadda u galay wadaadadu siyaasadda ma yaqaanaan oo laga badiyaa xuu talo wadaadku baashan siyaasadda ka doonay oo khatar ah war waxa laga hadlayaa diin way waa Ilaahay diintiisa subhanahu wa ta'ala waa kitaabka iyo sunnadii hadii aynu markaa rabno sidii reer banu Israa'iil inaynu kala googoyno afatu'minuna bi ba'd al-kitabi وتكفرون ببعض هذه مركا عين كالا ربده ومسألة كلوي إن علماء مسألة أكو إجماع سيهين إن قانون لدجستو أو اللي يراد وحاسي وحرام وحاسي وحلال يدو كتاب كي الله يسنن النبي من الله فيرني أنا قال لي متى هاي ليسكم الدين ابن كثير إيوه شيخ الإسلام ابن تيمية إيوه أبو يعلى الموصلي إيوه إمام الشنقيطي إيوه رجع الله ترين كريم باوركا سوق جوري
dadaan la tiro koobi karin ayaa warkaas soo guuriyey oo culimada muslimiinta ah ee bimacnaa cilmigooda loo daba fadhiyey taasina waa mas'alo labaad waxaynu maraynaa walaa wal baraag iyo xaakimiyadii mas'alada saddexaad ee tusaale u noqon karta caqiidadu muslimiinta in badan oo ka mid a maanta in khalal iyo dacfi ka galay waa caqiidatu aluluhiyya alla keligii ha la caabudo ilaahay keligii subxaana wa tacaala adduunkan ha loo ogolaado inuu keligii maamulkiisa leeyahy niman caqiidadoo ka khaldantay oo yacni maaragtay awliye iyo dad karaamo inay leeyihiin la sheegay iyo waxyaala caynkaasaa rumeeyey oo booskii ilaahayba subxaanahu casa wajalla bani aadam geliyey oo haddana muslimiin sheeganaya ayaa dhexdeenna ku badan qabri la dawaafayo alla kayrkii oo la baryayo bal hadda waxaan wax yar ka tilmaamayaa dadka caqaa'idkaa rumaysan caqaa'iddooda wax ka mid aan tilmaamayaa si aynu isula fahanno sida muslimiintu u yar fogaadeen waxaa la yidhaahdaa nin ka mida dadkaa la yidhaahdo waa awliye oo karaamu leeyahy masaladaa wax yar baan isdul taagayaa qof kasta oo muslima oo laba shardi laga helo waa weli ilaahay weeye subxaana wa tacaala qur-aanka ilahay ku sheegay alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyada ilaahay mana murugoonayaan mana cabsanayaan baa layidhi waa kuwee aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun dadka allana rumaysan allana ka cabsanay allah saa yidhi subxaana wa tacaala laakiin qolaa waxay yidhaahdeen awliyada dhowr bay u kala kacdaao weli is yaqaana dadkuna yaqaanaan allana yaqaan iyo mid aan is aqoonin dadkuna aanay aqoonin laakiin ilahay keliyaa yaqaana iyo mid dadku yaqaanaan allana yaqaano isna aan is aqoonin falsafaad caynkaasa iyo darajaad caynkaasa dadka qaarkood u sameeyeen markaasay waxay ka sheegeen karaamaad ka hor imanaya caqiidadii islaamka waxaa la yidhahdaa cabdullahi alyaafici nin la yidhaahdo ayaa waxaa la yidhi dadka qaarkood baa intay u yimaadeen nin baa intuu u yimi baa la yidhi wuxuu yidhi niyo waxaan kaa doonayaa inaad walad dakara isiiso walad dakara ilmo laba inaad isiiso markaasuu yidhi haddii aad arrinkaa doonayso oo aad jeceshahay dadkaa foqorada ee masaakiinta ee xarteeda ana soo salaan 100 diinaarna bixi muddo kadib buu ninkii yimi isagaan maaragtay ilmihii uu doonaya aan maaragtay la siinin markaasuu yidhi yaa sayidii wacadtanii biwaladin dakar wamaa wadacat imra'ati ilaa unha sidii aan kuugu imi waxaan kaa doonay inaad ilmo laba aad maaragtay isiisee xaajiyadiiba uun maaragtay dhadiguun bay ka bixi laada markay qaadaba gabanun bay dhalays markaasu wuxuu yidhi ninkii odayga ahaa yaa sayidii maa hiya naaqisatun wuxuu yidhi maaragtay arrinkaasi buu yidhi yacni maaragtay waxaanu kaa nuqsaaminay ma aha waxba annagu kaamaana nuqsaamin adigun baa wax iska nuqsaamiyey markaasuu yidhi maxaa nuqsaamiyey markaasuu yidhi intii lagaa doonayay baadan wada bixin saa darteed baanu markaa gabdhaha kugu fasaxnay xoogayga soo dhammaystir waxaas wax kutub ku yaalla wey xoogayga buu soo dhammaystiray ninkaan miskiinka ahi waxayna leeyihiin markaa ninkii wiil buu dhalay waxaa laga dhaadhicinayaa qofka muslimka ee waxaa kanoo kala akhrinaya in ilaahay subxaanahu caza wajalla aanu ahaynka isagu qur-aanka ku sheegtay yahabu liman yashaau inaathan wa yahabu liman yashaau dhukuur aw yuzawijuhum dhukraanan wa inaathan wayajcalu man yashaau caqiiman isagaa kuu doono gabdha siiya kuu doono inama siiya ka uu doono isugu dara ka uu doono waxba aan siinin ilaahay baa saasa subxaana wa tacaala booskii raday maxaa la gelinaya nin oday oo halkan fadhiya oo haddii shilimaanta aad u dhammaystiri weydo yacni maaragtay kugu caroonayo oo gabdha uun maaragtay ku siin ayaa maaragtay meesha lagu bedelay waxaa kaloo ka muuqata walaalayaal caqiidadii xumayd ee gabdha nacaybka ahayd ee kufaartii qoraysh laga soo gaadhay iyada laftooda inay meesha ku jirto taasna waa caqiido khatara weeye waxaa kaloo la yidhaahdaa laba nin oo nimankaa karaamada sheegtaaba isu faanay baa layidhi waxa kutub ku yaalla weeye markaasaa mid wuxuu yidhi laa yakuunu shaykhu shaykhan xataa yamxuu khatii'ata talmiidihi min lawxi lmaxfuud ninka sheekha sheekh karaamo laba noqon maayo ilaa uu gefka talmiidkiisa ka dhaca ardaygiisa gefka ka dhaca ilaa uu lawxulmaxfuudka ka tirtiro mooye maba noqon karo buu yidhi sheekh karaamada malakaas kii kala hadlay
markaasuu yidhi laa yakunu shaykhu shaykhan xataa yamnaca alkhati'ata min tilmiidi sheekhu sheekhba noqon maayo wy ilaaba muxuu masaxaad iyo macaba la gaadha ilaa uu isku hortaago inuuba ardaygana gafo sheekhu sheekhba noqon maayo karaamale ilaa uu maaragtay kan hortaagan macsuum ka dhigo khuraafaadka caynkaasi walaalayaal way badan yihiin aad iyo aad iyo aad ayay u badan yihiin ilamaa dadka la gaadhsiiyey in qofka nafsiyan loo cabsi geliyo waxaa la yidhaahdaa nin la odhan jiray shamsudiin alxanafi oo ka mida baa la yidhi culimmadii maaragtay raggaa maaragtay karaamaadka sheegta ayaa waxaa caado u ahayd baa la yidhi mar allaaliya markuu arko nin xertiisa ka mid ah oo ay ka muuqato shahaamatu nafsin naftiisu inay la weyn tahay muxuu ku ciqaabi jiray wuxuu ku ciqaabi jiray baa la yidhi bishaxaatati min alaswaaq inuu intuu suuqyada tago ka soo dawarsado si maaragtay loo madax jabiyo oo loo karaamo jabiyo ummad badanoo walaalayaal muslimiina ayaa maanta caqiidada caynkaasa ku nool oo laga dhaadhiciyey sheekh baa jira khaas ah oo karaamo khaasa leh oo ku arkaya oo inaad ka baqda ay tahay oo inaad maaragtay allahuma mustacaan isu dullaysa ay tahay oo xataa isagoo munkar ku jira haddaad aragto wax kalaa looga jeeda ay ha khaldami waxaa la yidhaahdaa sheekha kitaabkan iskale wuxuu soo noqlinayaa qof dumar ah oo maaragtay boqorrada haweenihii u dhaxlay ka mid ahaa boqorrada ka mid ah boqorradii muslimiinta soo maray ayaa nin sheekha u tagtay baa layidhi markaase waxay aragtay sheekhii oo maaragtay dumarkii khaasadu yacnii dadkii acyaanta ahaa dumarkoodii ay ag joogaan oo ay maarata takbiis ku samaynayaan bimacnaa ay duugduugayaan fa ankarat biqalbiha calayh markaasay inkirtay qalbigeeda bay ka inkirtay waxayna leeyihiin falaaxadaha shaykhu bicayn sheekhii baa markiiba gartay ilaan waa sheekh waxa qalbiga ku jira ogey inay wax inkirsan tahay markaasuu indhaha ku gubay markaasuu wuxuu ku yidhi maaragtay bal fiiri dadkan balada wejigooda aad u fiiri fa nadarat fawajadat wujuuhahunna cidaaman way fiirisay baa la yidhi markaasay aragtay dumarradii oo maaragtay wejigoodiiba galkii laga bixiyoo lafa ah wuxuu uga jeedaa ha u malaynin inaan maaragtay anigu dumar iyo shahwo iyo arrimahaan ku mashquulsanahaye lafahaasay iga yihiin macnaha falsafadda ka dambaysaa waa maxay gef xataa cad haddaad aragto haween aan maxramba u ahayn oo waxba aanay ka dhaxaynin yaa duugaya xataa haddaad aragto khata'aas wax kalaa dhici karee ha khaldamin waa sidii kii la yidhi sheekhiisii buu dabagalay baa la yidhi oo maaragtay arkay mala inaanu dadka salaadda la tukan salaadda makhrib baa salaadda ugu wakhtiga yara markaasaa la yidhi faqiih nin faqiiha buu u tegay markaasuu yidhi sheekhow xaajo daran bay haysee makhribka iyo cishaha ma jamcin karaa markaasuu yidhi waa jamcin karaysaa oo taqdiim iyo taakhiir kaa doontaad ku samaynaysa ninkii makhribkiisii buu dib dhigtay muxuu rabaa bal ninkaan odagaa inuu muraaqabeeyo sheekhaan meel baa lagaga tagaa la yidhahdaa wuu ku khalweeyaa ninkaan odagahay markaa meeshiiba kama ag fogfogaan ninkaanunbuu meelun ka fiiriyaa xaajigana salaad ba isuma taago hadhow buu ku soo noqday shaykhii baa markaa waxa ina leeyihiin shaykhii baa markaa maaragtay ninkii odagaha inkaaray oo maaragtay balaaya ku dhacday maxaa yeelay wuxuu ku khaldamay caqiidadii saxda ahayd ee ahayd qofku hadduu derajo mucayana gaadho in cibaadaadkan iyo salaadan iyo waxaan laga kor qaadi karo waxay ku leeyihiin salaadan iyo soomkan iyo waxa loogu talagalay inay qalbiga sifayso qalbigu markuu aad u sifoobo waxaa ka baxaya nuur qofkii marka carshigu daalacanaya heerkaa marka hadduu gaadho yaqiintii buu gaadhay cibaadaadkii baa ka dhacaya marka sheekh derajo gaadhay khatar ah oo cibaadaadkiiba ka dhaceen oo maaragtay carshigii daalacanaya ayuu miskiinkani markaa fiirinayaa inuu bal salaaddii tukaday iyo in kale howlo waaweyn baaba sheekha kan u yaalla maxaa salaada carshigii iyo looxul maxfuudkii buu daalacanaya walaalayaal caqiidada caynkaasihi waa caqiido muntashira weeye dad baana u xidhxidhan hadda weli dad baa ilaa casriga kan caqiidada caynkaasa u xidhxidhan oo halkii ilaahay ay ka baryi lahaayeen makhluuq ka baryaya halka ilaahay tala saaran lahaayeen makhluuq tala saaranaya marka la yidhaahdo war waxaan waxbaa ka khaldan buu ka odhanayaa karaamadii awliyadaa la diiday
وأولياء لما ديدنا كرامة ولا لما ديدنا كي راي كرامة سي مسلم كودن با مكرمة قف كوسو إسلامي كرامة لي إن أنتو كتبها كرامة كوكو فلان كرامة قفك مسلم قال لما ديدنا وروح الذي ديه وحوي قف بني آدم أو أدقى كلامده أو إلهي التكاليف صاري أو مكلف أو سيدا أدقى وحلقا قربه يسنى الله قربه إن اعتراض البشر كدوين هاي أو ويا الله بريا أو مارت وحوى الله قليا أو خرافات كانت كدل وريكته واتي كفارتي قريش لفت إيديوي سموه قدين كفار قريش أصنامت أي عابدة مركي اللي يرور محادو عابدة يسان محير هذين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا مع عابدة إن إلهي بين نور دوينيان تدون أقسم بهايانو ألا ينور دوينيان تطبع ما أنت كله ضد كان والوناكسن إلهي بين نور دوينيان كفار قريش مركي الضوافة يا وحي ورنشرين بالي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا لك ملكته وما ملك إلهي واكو أجيبني أو واكو أجيبني عبادة كلي أبا إسكاله عد لقول وذاتنا يا مجرته إلا مديرو أدو هانتيو إسقوا أروح وحما عن مارتي فراكو هينين كاسم باكو قد والله مان ورما إسكد إنسان كان يرلفتي سما تورتار دار رحمة ترينين dadka muslimiinta qaar badan oo kamid ah maanta warkaas urmaysan inagu walaal maxaynu ku darnay khuraafaadkii waxaynu ku darnay aqeedadeeni tii maartay qabaliyada markaas reer kastaaba illa man rahima rabbi odagii uu ka soo jeeday muxuu noqday wali ilaahay buu noqday markaas xaflada loo sameeynaya waxba loo gowracayaa khatar weey aqeedada caynkaas walaalayaal ashcaar iyo gabayal laga alifay baa jira oo maartay cadeynaya بل سيدا أي دادكاسي أي أفقادين وهلك إلهي لقبر يلها سبحانه عز وجل لقبر يأيوه بني آدم مخلوق لقبر يأيوه بدو نينك اللي يرادوه أيا نينقبي أتريه بل قبي قاعدة دقيستا وحاوليه هاي يا من رماه الدهر بالإزعاج نادي بعزم يا أبا فرج فهذه الأزمان من الحوادث إن أتت وهو الملاذ لنا وعون الراجي وهو المراد إذا الخطوب تراكمت وهو المجيب لدعوة المحتاج وهو الطبيب لنا وقبا إسكدروي وحوله يا من رماه الدهر بالإزعاج ننكا سنة نباتك توريو نادي بعزم أدقوا وليبا قوان كاقا كو أدق نواق وحطر هذا يا أبا فرجي أبا فرجو بدوي فهذه الأزمان من الحوادث إن أتت وحير الزمن ندة يدباتضع وضهدي تماضو هو الملاذ لنا وعون الراجي كأن أولا حنينا وبدوي كأن رجالنا وإساقا وهو المراد كاللدونا وإساقا إذا الخطوب تراكمت مركا أي دباتضع يسدل فوشه وهو المجيب لدعوة المحتاج كما رقتي كباهن كدعوة كأجيبانا مركو بريوه يعني مارت كأقبلانا وإساقا وقف بشر وبني آدم وي وانا قلو رجين ايو لكن الله اكتي وحكيه اما قرنين جنة كجريها نار كجريها إلهي با قرنين سبحانه وتعالى وغيب مركاسا للي إساقا الله بريها بل قبل قلنا هذا دقيسة وجهور نفيسكي وكوي إنه أخرين جرنين سمارد كوي أخرين جرنين شيخ ويس با الله ترنين وحولي مدد هيا غوثنا النفيس ونفحة منك يا أنيس أنت إمام لنا رئيس مدد مدد شيخنا أويس مدد غوثنا أويس أنت غياث الورى ظهير وشمس دين كذا شهير يعني واقبي عدياد دير وحاوليه أنت غياث الورى ظهير وحتى هاي مخلوق أردن كي أقرقاري أو مقضى مخلوق أردن كي أقرقاري بات قبيض عين كاس ولا ليال فرها بدن له يعني وحوي ما ركت الله مستعان كما ما انكرنا ما نترين كرنا قد تلمامية انحراف وين وخطرة وضد بدن المسلمين مركا يكون جود جيران او ما ركت اي كل من صدح لا مسألة الحاكمية مسألة الولاء والبراء ومسألة توحيد الألوهية وتوحيد العبادة صدح ذا سواحد تصال عد ويهين سيدا إن بدن المسلمين تكمل التوحيد كي عقيدة صحة يدوا انحرافين ضد عين كاسيه مركة ميال لغا سوغيا سيدا أبو بكر وجهادين وجهادان
أبو بكر إلهي كليو يقاني مدد يا أويس ما أقون ويسو وحنو كردي وحنو زيادة ما أقونه مدد يا الله أبو يقاني إلهي كليو كحنا سبحانه وتعالى نبي محمد با كتر بيدي لا تحزن إن الله معنا همرقن إلهي باين الله صعدي عبد القادر باين الله صعدي شيخ ويس باين الله صعدي بدوي باين عركيه رفاعي بينو قرقار سنينا وحاس لو ما تربيدي ولا والبراقة وعددك اللي قلت تربيدي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وقفكم مرقى دينتي سيلا الشنية سموه قدين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قاركود معركو إني أبهد كدلين قاركود أبتغود كدلين أبا بكر وحن فيليا دولان كي بدر وهابان فيليا إنن كيس محمد أبا بكر ومركا عن سوء إسلام بعد دقالك كتشري مركا سان أبا بكر اسكو بيجي سي إنن كيس ومارت أوغا تخلصه مركا سان إنن كيسونا كل حليحانه إسلام دوضيغا أبها يعني مارت أدقهم يقع عنك يا قاري هذه العقيدة يا إخوة لكن إنه ما أنت ماذا يسوق إيمانيان كي صومالي أها ماذا يسوق إيمانيان أضيق تبنات هذا حتى أبترك اللفتي صلى الله عليه وسلم أما أضيق الله باتناد يسوق إيمانيان أما كصدنات بدينتي سي آخرتي سي إيمانك سي ضعف صنايع ليه هب المرة دي وحجاريو هب المرة دي وحنقونيو هب المرة دي ومالك صباحيو أنا أنت سيقول أنت سوري هب الماء اسكو شفيه اسكو رار منهن خلاص أنت سيقول أنت يعني مرة سادات القرآن كودا نخرده إيه هذا حديث النبي كودا نخرده عليه الصلاة والسلام يوم مرة هذا وحبك لا دعين كرن محايا ليتنا كغالبا ولا ليال عقيدة داسي وتوحصو صارتوي العقيدة هي التي تربي الأجيال سادرت لبا نقطة وانت دار ما إن شاء الله ولنا قرتان عقيدة برانو سي نوبت بهدنو أو توحيد صح عين إلهي الله ارتقنو نبي عليه الصلاة والسلام وحكسونا هذا حديث نين أفرتن سنة تكني وقال له هرتي أنت اللي استاتشيو وجهك لك قد فني سلاديس مركز الصلاة وحي ورانيسا ضيعتني كما ما ركتي ضيعك الله كما ضيعتني الله هكوها الله يسادي الله يسي ننكاسي محوها وحوها نما عندي أركانتي صلاة إيه شروط دي إيو أنقرني وحو منها ننكاسي سيدي ننكي مصيء صلاتي يقاها نبا النبي قويم عليه الصلاة والسلام مالين مرقاسو أكتي سكتو كذي النبي عليه الصلاة والسلام مرقاسو سلامي مرقاسا النبي كوير ارجع فصلي فإنك لم تصلي ورصلاة تكو وحمادا تكني وصحابي تكذي بالليل تكو وحمادا تكني صدح قربا صلاة لو علي إلا مركي دم النبي كبر عليه الصلاة والسلام قارب بدنا أنه كم دي صلاة إنه مصحنا لكن بل صلاة إسكبر ضافه والتوحيد كي أو أركانتي سي شروطي سي النواقض سي مقتضيات كي سي أين أنجرنين ولله ينا الله ارتقي سبحانه وتعالى أو مركا أيان كلمة التوحيد وجهك الله ينك قرفن سيدي إنك صلاة هلا يأكله ورتب التوحيد كالله برتو كتب العقيدة هلا دراسي كاسوا قضب كالله بعدنا dadka ducaada ah ee diinta Ilaahay garanaya waxay ku jirtaa tarbiyadu dadka in aqeedada laga saxo akhlaaqiyadka iyo cibaadaadka iyo yaani maarta waxyaalaha aynkaasi waxay yimaadaan qofka marka aqeedada u saxanta atuallimuna Allah bidiinikum ma Ilaahay baan diinta barayna subhanahu wa ta'ala nabi maxamed markii la soo diray alayhi salatu wa salaam aqeedada sax baa leeyahay 13 sano ya nabigu alayhi salatu wa salaam aqeedada kaliya ka hadlay al aqeeda faqat نبي محمد كان لي عليه الصلاة والسلام ولا ليال أنا وحنا سلايا سومالي ده بوسكي الله يري رميانا إن بدن وحا كلا ترتميا أمام الريحيبة قبيالة دي الريح دي مركاسو هدو رياركا وحلقا الشيغو وعرهن لكن هدي إلهي وحلقا الشيغو حل بدن كما سهرنا حقوق دي رياركا هدي حوغاي ماركت كراستي أي الهايين اللي يرادو مدبال لغا نقسامي صارت صائرته ودقالميا إنا نصيحان بالغيها لكن إلهي دينتي سادي مالك قدعو سبحانه وتعالى قفكاسي وحو يحبو ماركتي دنتي سماء كليه واحد تصالة كفر المانتا وحو ودن كأني كدع عيولا لها كليه تعاون تصالة وقاقات إن بدنا أمدي صوماليات كمدي مانتا ودن باللمي إيو استعمار بعد القبصدي إيو قالا إذن الله ينيسا iyo waxa soo dhami dhag bajalq loo siin maayo wax ka weyn baa jira wax ka weyn oo qabliyaha jirta qabliyadu wala la yaal waa aqeedo xun oo khatara
waxaa ka mid a xumaanteeda waxay qofka muslimkaa ka dhigtaa imacadu waa dameere dhaan raacday haddaan af soomaaliyeeyo nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam laa takun imaca war dameere dhaan raacday ha noqon dadku hadday hagaagsanaadaanna hagaagsanaada hadday xumaadaanna la xumaada reerku hadduu diinta raaco wuu la raaci hadduu ku gaaloobo oo ka kufriyana wuu la kufrin masaawida ay leedahay bay ka mid tahy maanta ummaddii soomaaliyeed dadkoodii ahlu caqliga ahaa iyo kuwii ahlu diinka ahaa iyo kuwii aqoonta lahaa iyo kii geeljiraha ahaa aan aqoonta lahayn intiiba in yaroo ilaahay u naxariistay mooy isku sibaa loo fakeray waxoo la isma dheera sidaa darteed ba haddaad brofesor iyo nin maaragtay iska reer miyi ah iyo qof aqoon mutawasida leh aad majlis isugu keento meel bay ka wada jaanqaadi sheekada waa isla fahmi maxaa yeelay waxaanay ku kala xariifsanayn bay ka wada sheekaysan waa qabyaaladii markaasaa aqoontii luntay kii aqoonta la aqoontiisu ictibaar ma leh reerkaaba laga badiyaa sida reeruhu u kala maaragtay inta magoode kala maqan iyo dhibaatada jirta waaba lagaga khabiirsany sidaa darteed majliskii ma buuxin karo sheekhi waa la mid odayga muxtaramkaa waa la mid baasha qabyaaladda walaalayaal imacay qofka muslimkaa ka dhigtaa waxay maaragtay ka dhigtaa qofka muslimkaa inuu noqdo qof aan hadaf iyo ujeeddo toonna lahayn hadaf iyo ujeeddo toonna qof aan lahayn bay ka dhigtaa qofkii dhammaa ee muslimkaa muxtaramka see bay uga dhigaysa isagoo caawa iska seexday oo dhibaatada aanay dhicin ayaa tuuladii laga soo sheegay in reerkii iyo reer kale isku dhaceen war markaad dagaal gelayso waa inuu kuu barnaamijaysan yahay oo yacni maaragtay hadaf iyo ujeeddo aad ka leedahay ay jirtaa laba un baa isdilay dabeedna khalaas judhadiiba qofkii dagaalkiiba dhinaciisa ka geli waxaa laga yaabaa kay isku ficinaayeen ay shahwada cabbi jireen iyadan dhibaataba aanay dhex marin inuu markaa barri markuu soo kacdo isagoo huruufaya oo maaragtay sanka u taagaya oo markaa ka hor yimaado qofka muslimkaaba waxay ka dhigaysaa qof aan macnoba lahayn yacni waxa weeye maaragtay aan xikmadba ku fadhiin nin geel jiro ahoo dhulkii joogaa wuxuu sameeyey iyo odayaan aad maskaxda uga shaqaysiin tale uu ka teliyey ayaa qofkii aqoonta lahaa iyo ninkii dhallinyarada ahaa iyo qofkii diinta garanayey yuuba u xidhxidhan yahay walaalayaal allah laga cabsado subxaanahu caza wajalla caqiidada saxda ha loo soo noqdo oo ha la toobad keeno taa weeyata aynu ku najaxayna kuwii innaga inaga horreeyey taariikhdii axmed gurey oo adhexaasaan muxaadaraad ka jeediyey dadkii innaga inaga horreeyey ee ajdaadda ahaa ee qaarkiin laga yaabo inaad ku abtirsataan aad ka soo jeedaan markay jihaadayeen oo dagaalamayeen oo ilaahay diintiisa subxaanahu caza wajalla ay qarnul ifriiqi oo dhan gaadhsiiyeen oo dadkan oromada la yidhahdaa maanta ay sababtooda islaam ku noqdeen dadkaas dad tawxiid iyo caqiide iyo diin u dagaalamayay ahaayeen taasaa marka mid haysay ogaadana walaalayaal soomaaliyey waxa idin midayn karaa waa caqiidada tawxiidka iyo masjidka sida aad maanta masaajidka u wada fadhidaan maaragtay ninna aanu maaragtay ka kale laga yaabo inaanu u garanaynin aad halkaa ugu midaysantihiin rag iyo dumar kelmaddaa keliya idin midayn karta walaha 4.5 ka soo reera ka xanaaqsani ma jiraan jifiye ka caraysan baa jira oo annaga oobana lagu dulmiyey oo ayba suurtagal tahay in lagu dulmiyey waaba suurtagal in lagu dulmiyey ayib yani waxa way taa weyta idin midayn kartaa ee tawxiidka u soo noqdo oo ilaahay ka cabsada subxaanahu caza wajalla intaas baan kelimadda idinku koobi doonaa biidn illaah hada wabillahi tacala tawfiiq وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته